alaabta Soomaaliya oo baahayna waxaan haynaa kreemooyinkii waxaan haynaa kreemooyinka ay noo isticmaalaan waxaan kaloo nageeyay alaabta inta suuqal baxnaaniyo samiro caadaysatay sanuga maalmeediyo suuqal baxnaaniyo suurtageli karto ay suurtageli dukaanka maanta aragtida ayaa magaalada ka furtay dadka Soomaaliyeed rajo ayaa wada gashay dhammaan inay dhaqaaq ay sameeyaan oo wada qabtaan maanta dukaanka wuxuu barkinaysaa oo loo baahdo oo dhaqanka Soomaaliyeed ku salaysan ku samaysan waxay dumarku isku qofinaayaan wax walba marka ma hadda gaarto iyada iyo ay shaqada ma ilaa akhir waqti dukaanka ku ma wax badan baa soo yeelan والبوفر وحول وياك قحويه هادو إلى إكرام وحن جعلها إنا كنا معايا بداية عن أفرنا وحن كلاو هاينا على أوردر كنا عبائين وحن كمان بليدو هذه الشيء كتير كريمه وحن هاينا
fadhiyadii waxaan haynaa fadhaxabeedkii waxaan haynaa daahmadii wax kasta nooc walba guri lagu sharaxo katiifadii dhulka wax walbaa la degada heli karaa waxaa lagu hambaleynayaa luul axmed daad oo dukaan buuxiyey baahida bulshada ku nool deegaankan iyo gaar ahaan dadka ku agdhow buuxisay ayaan u hambaleynaynaa waxaan leenahay hambalyo hambalyo waa dukaan weyn oo laydinkaga furay degmada Shien dalka Norway kaalaya oo ka adeegta caruurtiina uga iibiya naftiina uga iibiya dhammaanteen aan ka wada iibsano waxaa magaaladan aan deganaa muddo 23 sano ah waxaa hubaal ah luul axmed daad waxay suurtagal ka dhigtay wixii la islahaa ma suurtageli karto ayay suurtagal ka dhigtay oo dukaanka maanta aragtiin ayay magaaladan ka furtay dadka Soomaaliyeed rajo ayaa wada gashay dhammaan inay dhaqaaq ay sameeyaan oo wax wada qabtaan maanta dukaanka wax walba keenaysaa oo loo baahdo oo dhaqanka Soomaalida ku salaysan ku samaysan waxay dumarku isku qurxinayaan wax walba marka ma hata ka gaarto ayada iyo wixii shaqadan la qabtay ما إلى آخر وقت كان كانوا كمان ما في واحد بدل بسوي وكان صاروا ما شاء الله دين أول بوب بالعرض وأول بيالك